وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مدنيال iyo marweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wacyigelinta ee idinkaga imaanaya xarunta Samatalis oo had iyo goor ku howlan sidii dhammaan bulshada Soomaaliyeed looga haqabtiri lahaa wax kasta oo ku wajahan sidii ay dalka si wadajir ah u horumarin lahaayeen isla ahaantaasna ay muwaadiniintu u heli lahaayeen adeegyada ay dawlad uga baahan yihiin iminka waxaan idin soo gudbinaynaa aqoon kororsi la xiriira waxa ay dawlad tahay iyo waxa shacabku ka doonayaan dawladda ee iyagu markaas dhisteen walaal xuseen aad baa u mahadsan tahay akhyaarta kale oo walaalahay ah oo madasha igula jirana waan salaamayaa iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed oo daawan doonta hadalkayaga waxaan ii muuqataa amaan dareemay in walaalahay si fiican arrintaas u dhigeen soo koobeen Saleebaan su'aashaas mugga weyn oo dawlad waa maxay oo si kooban qaybaheeda iyo waxay qabato iyo sida ay ku hirgasho uu inuu ku soo koobay walaal Caynab iyo maxamed cabdi Caynab iyo Cabdirasaaq Daadna ay maaragtay iyaguna si wanaagsan u faahfaahiyeen anigu wax yar baan ku darayaa su'aashu waxa weeye dawladnimo waa maxay iyo maxay Soomaaliya uga hirgeli laadahay anigu hadalkayga waxaan ku aadan yahay kelmadaha aan ku darayaa waqtigan dhow oo wixii burburkii iyo dawladahan hadda la sheegto ama tan maamul goboleedyada ha ahaato ama tan federaalka ha ahaatee baan wax yar ka dhahayaa sidaa uu Saleebaan u sharxay dawladnimo waxa ay tahay iyo qaybaheeda kala duwan iyo adeegyada ay bixiso ma la dhihi karaa maxay dawladdaasi uga hirgeli laadahay hadda same ka jirtaa shacabkana su'aashaas iyaguna qof walba waxaan rabnaa meeshuu joogo inuu wax iska weydiiyo anigu waxaan qabaa inay dawladda sidaa loo sheegay sababta ay uga hirgeli laadahay ama loogu guul daraystay inay Soomaaliya meel kastoo la joogo maamul goboleedyada iyo tan federaalka ay uga hirgeli laadahay waxa weeye aasaaska lagu dhisay dawladaha ama maamulada noocaasa ayaa khaldan waxay weeye sida guri aasaaska ama tiirarkii gurigu ku taagnaan lahaa oo khaldan weeyo injineerkii la rabay guriga inuu dhiso oo isagu rabaa inuu kala shaxaado oo khayaamo oo wixii isqabsan lahaa oo xoogga u yeeli lahaa gurigu inuu taagnaado injineerkii dhisayey waxaan ku masliyaa tan dawladdii iyo hogaamiyeyaashii ayaa halkaa khayaamo oo aan daacad u ahayn qofka guriga loo dhisayaana maadaama uusan khibraddeeda iyo aqoonteeda lahayn hadda iskama qaban karo qofkaa lu goynaya oo injineerka oo hawsha uu ku aaminay halkaasaan anigu kaga cabiri lahaa Soomaalidu waxa noocaasana waxay ku maahmaah baa jirta ama xigmad hal xaaraanihi nirig xalaala ma dhasho wax si khayaamaa ku bilowda wax siday ahaayeen ku bilowda wax tiirarkii
ay ku taagnaan lahaayeen ama khaldan yihiin ama maqan yihiin wax wanaagsani kama dhalanayaan bay aniga ila tahay ama waaba waxa hadda muuqda marka dawladdii ama maamulada la sheeganayo ama dawladda federaalka tan maamul goboleedyada waxaynu u jeednaa in dawladnimadii oo dhanba ay noqotay ganacsi bal hadda day lacag bay isugu soo ururtay iyo ganacsi loo jeedo oo sidii suuq furan oo xoolaha loo keeno oo la isku weydaarsado ganacsigaas ayaa dawladnimadiiba hadda wixii intii burburkii ka dambeeyey ama xukuumadahan jiray Soomaalida la yiri dalka soo baxay dagaal sokeeye muddo 30 sano ma aragtay muddo adigu dhowr iyo 10 sano dawlad la'aan ahaa ummadii iyo dawlado dan kale intay ku noqday ilaa iyo 2006 baan u malaynayaa midda kuwa hadda jirjira baa ugu xoog badnaa waxa loo aasaasay tanta federaalka la yiri waxa loo amaamudo meeshii wax laga bilaabay dadka isku keenay Soomaalidii kala tagtay iyo burburkii dawladaha iyo dadka ku soo noqday intooda badni waxay u muuqataa inay dana kala haayeen bal aynu wuxuu amaamudno dadka kan saan uga danaysano taasi waxay keentay marka waxaani wax ummadda Soomaaliyeed ma la is weydiiyay dan u ah inay tahay maxayse noloshooda ka bedelaysaa sidii walaal Caynab hadda uu ka hadlayay dawladnimada iyo maamulada iyo wixii loo dhisay waxay u muuqataa inay waa dawladnimo kama soo harto hoggaanka dadka marka hoggaanka noqonaya haddii ujeedadoodoo dhammiba tahay meeshaan adigu ku danayso ama ha ahaato nafac ama ha ahaato magac ama koox u adeeg ama dad gaara u adeeg haddee waxa ka baxayo ujeeddadii dhammayd oo laga lahaa dawladda dawladdii hadday ka maqan tahay saddexdii qaybooda ugu waaweynaa sharci dejintii iyo qolyihii sharciga fulinayay iyo maxkamadihii oo haddii dawladdu xadgudub la timaado ama shakhsi la yimaado labada goloo kalaba isha ku hayn lahaa wixiiba hadday isugu soo urureen hal gacan macnaha hoggaan maamul kasta iyo federaalka waxaan shaki ku jirin in hoggaankii meeshaa joogaa isagu kulli wada yahay Soomaalidu inay been isku sheegto maahan hadday rabaan inay wuxuu hagaagaan waa in boogta farta la daro oo waxay dawladnimo Soomaaliya uga shaqayn la'adahay ama uga hirgeli la'adahay ama wuxuu khariban yihiin in laga hadlo weeye in laga hadlo oo meesha wax ka qurmayaan sartu meeshay ka qurmayso in la tilmaamo weeye Soomaalida la yiraahdo beenyayna isku sheegin haddaan waxaas la sixin 100 sano soo socotana sidaasay wax ku soconayaan oo shacabku gartaan oo fahmaan oo yiraahdaan waa u jeednaa ama ciddii u sharxi lahayd meesha wax ka khaldan yihiin marka anigu waxaan ku soo koobahayaa hoggaanka hadduu hoggaan ummadii ummad u adeeg shacab u adeeg noloshooda wax ka bedel adeegyadii la soo sheego dhinac walba leh iyo baahiyaha ka jira wax ka qabo hal shakhsi oo waxaan aaminsanahay hoggaanihii hadday taasi ku weyn tahay oo waxa uu jagada u soo doontay ama xukunka u raadinaya hadday taa tahay in wax saxmi karaan baan aaminsanahay laakiin hoggaan aan daacadnimo ka muuqan daacad aan ahayn aan iraahdo sharaf iyo hufnaan midna aan wax ku xukumay waxa la yiraahdo integrity hoggaan aan lahayn oo aysan ka muuqan oo aysan meelna ka soo gelin haddii ummadii taladii oo dhan iyo dawladnimadii gacantiisa ku ururto
maxaa ka soo baxaya weeye maxaa ka soo baxaya weeye taa weeye dadku inay isweydiiyaan marka waa sharci darrada waa hogaamiyaal aan daacad iyo damiir haddaba haddii walaal iyo Sulaymaan hufnaan uu iyo noo sharxay qadiyad wax waxa ay dowladnimadu tahay aaminsan ama dowladdu yihiin tahay oo ka iyo dhab waxyaalaha ah shacabka ay uga baahan yihiin oo ama la ay doonaya ku in shacabka lagu mitidayaan qabto oo ay ku soconayaan oo ay ayaan dad waxaan ku isweydiinaynaa hogaaminayaan aysan jirin waxa taasaan sababay anigu in muddo aaminsanahay intaa la eg taasoo la saxa ay maahane Soomaaliya dowlad waxaan u malaynayaa sida inaan hadda loo soomaalida sharxay oo kale dowladnimo inay ka fog tahay uga inay hana qaadi dowlad u weysay hirgasha inay dalkeena yeeshaan Soomaaliya waxaan ku dowladnimada hormarinayaa walaal marka hore Cabdirasaaq shacabka Daad inuu soomaalidu wax ka yiraahdo inay gartaan macnaheeda maanta intaa weeye ujeeddada ugu weyn oonu ka leenahay barnaamijkan dadku inay isweydiiyaan oo ay gartaan isfahamsiiyaan meel alle meeshay joogaanba dowladnimadu waxa ay tahay iyo waxa ay qabato oo barnaamijka iyagu maanta ku bilowday waxaan kaloo aaminsannahay dadka soomaaliyeed inaysan dad xun ahayn inay dowladnimo rabaan inay daryeelka iyo adeegyada dowladnimo bixiso inay u baahan yihiin rabaanna wax wanaagsan dadka soomaalidu iskama xumeeyeen annagoo iyadoo la og yahay dadka soomaalida in sidii looga soo sheekeeyeyba xagga aqoonta ku yar tahay fahamka dowladnimadu ku yar tahay lana socotaan qaab nololeedkooda laakiin hadda in badan oo magaalooyinka ku nool xataa maanta qofka reer miyiga ah oo xoolo dhaqatada ahi wuu dareensan yahay baahida uu dowlad u qabo dowladnimo u qabo xukuumad u qabo maamul u qabo daryeelaya abaaruhu markay ku dhacaan wax u qabanaya deegaanka iyo maaragtay cimilada ka hortagaya dhibaatooyinka ka dhalanaya xooluhu markay ka xanuunsadaan daawooyin iyo maaragtay waxu qabasho u keenaya qof aan maanta baahida dowladnimo loo qabo aan dareensanayn ma jiro marka dadka soomaalidu baahida dowladnimo loo qabana waa dareensan yihiin waxa hadda ay haystaan dowlad iyo xukuumado u taagan oo ummadda dhibaatada haysata ay ku weyn tahay inaysan haysanna waa dareensan yihiin marka waa in su-aalahaas la isweydiiyo oo annaga ujeeddadii waxay shacabku inay wax isweydiiyaan dowladnimada in la fahmo waxaan hadda haysanaa maxay yihiin waxaa kaloo jirta dadku hadday dareensan yihiin awood daraa jirta waxaa jirta awood darro shacabka inaysan dareenkooda soo gudbin karin inaysan hadli karin inaysan ciddii hor timaada oo dowladnimo sheeganaysa oo maamul sheeganaysa inay iyagoo isku duuban meel uga soo jeestaan oo yidhaahdaan waxaan aad dowlad iyo xukuumad iyo maamul iyo maxkamado iyo xeerar iyo sharci aad nooga dhigaysaan ma ahan wixii la yaqiinay oo dowladnimo lagu yaqiinay oo sharci lagu yaqiinay oo kala dambayn lagu yaqiinay ma ahan inay dhihi karaan iyaga oon colaad iyo gacanka hadal aysan ahayn waxaa la yidhi ri walbaa shilalka ay isdhigto ayaa lagu qalaa waxaa dadka looga faa'iidaysanayaa waa garasho la'aantaa dowladnimo iyo hadday garteen ama inta garatoo fahansanin inay yidhaahdaan waxaani naga gadmi mayaan waxaan aad dowladda noogu sheegaysaan ma ahan qaabkii dowladnimada iyo ama lagu xukumi jiray ama lagu hogaamin jiray ma ahan marka awood dhis iyo dadku inay maaragtay dareemaan inay hadli karaan inay waxa xundiidi karaan inay wixii wanaagsan oo meeshii maamul iyo wax wanaagsan jiraanna inay taas sii bari taaraan oo soo dhoweeyaan waxaan kale oo aanu dareensannahay oo markaanu hadlayno hadalladayada ma moogin soomaaliya inay meel burburtay tahay inay meel intaasoo sano dagaal sokeeye ka socday inay tahay inay duruufo adag ku nool yihiin marka meeshaan ma ahan inaanu xaqiiqada ka boodsannahay oonu rabno soomaaliya inay hal mar ka dhalato ama ka curato
dowlad wax walba hanan karta ama shuruucda u dhammaystiran yihiin isla xisaabtankii u dhammaystiran yihiin maahan inaanu filno laakiin wax walba sida ay ku bilowdaan bay noqdaan waa in si wanaagsan haba yaraatee waa in wax wanaagsan wax lagu bilaabo laakiin maahan in la yidhaahdo wixii ugu xumaa oo wax walba ku kharimayeen sida siyaasadda iyo xukuumadda iyo maamulka dadkii oo loo jeedo xataa aan ka yaqyaqsoonayn oo ka hadlayn xukuumad iyo dowlad noqotay lacag loo soo doonanayo oo sidii suuqa furan xildhibaanada iyo dadka laleeyahay golaha shacabka lagu kala iibsanayo waxaasi dowladnimo maahan xukuumadna maahan cadaaladna maahan sharcina waa loo jeedaa maaragtay dadkii sharciga dejinayay baa maaragtay sidaa u dhaqmaya marka waxaan ku soo gunaanadayaa duruufaha jira waanu dareensannahay qof kastaa soomaaliya waa u jeedaa oo maaragtay isku mashquuliya waxa weeye sidaan hala dhaamo weeyo sidaan hala dhaamo haddii la rabo in dowladnimadaas aan maaragtay walaal Saleebaan maanta waxa ay tahay iyo waxa ay ka kooban tahay noogu furay hadalka waa intaa uun haba yaraatee hal tilaabo dhinaceeda loo qaado waana mahadsantihiin walaalahayga igula jira madashana aad baan uga mahad celinayaa nabadgelyo mudanayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaadba waan kaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah ee aad siiseen dhegaysiga qormadan aynu hadda idiin soo gudbinay waxaad naga sugtaan waa Samatalis oo mar kale idinku soo noqota oo mowduuc cusub idiin keenta intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu